xaflad lagu caleemo saarayay ugaas ay yeelato beesha gare ayaa lagu qabtay dalka UK. xafladan oo isugu yimaadeen qaar kamid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka UK Yurubta kale ayaa waxaa lagu caleemo saarayay ugaas Cali Xasan oo noqday ugaaska guud ee beesha gare kadib wada hadallo iyo shirar qaatay muddo oo dheer oo beeshaasi ay lahayd. xafladaas ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu caleemo saaray ugaaska waxaan dadkii ka soo qayb galay dhammaan ugu hambaleeyeen ugaaska xilka culus ee loo dhiibay inuu alla u fududeeyo. kaloodayaasha beesha oo kulanka caleemo saarka ka hadlay ayaa sheegay in beesha gare lagala soo xiriiri karo wixii iminka ka dambeeya ugaaska cusub ee caleemo saarteen ee ugaas Cali Xasan oo noqday ugaaskooda. meeshan waxa isku nimid invitation uu ahaa olada la yiraahdo Garra ugaaskeeda oo halkan lagu caleemo saarayo Cali Xasan Sheekh uu yahay. ولجيت هل كان أنسوق إمانة هدي مرة بعد أنكو علي وحواية إن أن باشي جرة أو معمول جود يكون مديسيهن أو يعني قارة يوروب إن مش يعني أنسوق إمانة سلطان كودا أم بملاك كودا أم بأوجاس كودا أم ببقر كودا نكلي علي أقول ديران والله ننكرت له أو دلال بدن أو أمانة له أو معرتي سومالي نمو يوح بدن أنكو جهي واي دلاله oo qiimo la waliba anaga hadda gudigaan ama madaxda ka ahay oo digri imirfle UK xogeeno noo yahay la'aantiis maba soconeenba walaalkan Ali andoayan ummad Israa'iilkiin gargaar ishel qaantay in dantiya qobsato muujidi walaah in la garab galo oo la aro Ilaahay garabkiin gala la armay wal kale in banaang maleh umatin ku bilaw taasu كنتو آيانا ويبا إلهي كين قرقار لكورة جيي بني آدنك مركا ومعمول إسيستم سميستو وحلو قرتا هرمر أيو قارا مركا بيشان ولالها نهي وحن لي هاي وحاتكو قولي ستين إلهي نحن كرجينا يا مارت إنو خلاف الحديثنا كدالينين لكن سلطانك وعن كعصلينا دقانا دان علمك الجيرين وعند باشا إذا كنت أما صوادك إذا كنت أنا وحبرشين وكأبورو إنه مارت عاثمات كرهاتشو إنه جالية ماشان جوكت اسكو حيرو أنا رنتي كجالي دهان صومالي دياسبرا UK سلطان كرنتي أنا مركور بسلطان نوعها كمد بوها وأنا أقويهنا مادة ما بح أقومت مادة يرنتي سيد رجع جوه ريبة يخرج تلمامين بده ديني بقى ديني أهبل الله وضع رنتي كون أحسن marka مثالي كرنتي باش أنا مثالي كرا ومد الصوماليين ودرقمات كرنتي مقالة لندن عاو كوسوغان قيب كالنقضي أو حبن كالنقضي كل أواسك باش جرى يوروب إيو أمريكا إيو إيشيا إيو أنت دياسبرا كنا المانت وحلاقة لحريري كرا بوستكور واللي بوستكور كنا أوغاز علي حسن أوغاسكي يعني صارنا وحبك مقابنو أوغاسو يوروب وطن أوغاس كتهي صومالي وانت شنت صوماليات أوغاس كتهي ها قبيل هالشيء ميل إبعتكو أركتو كتك نسوع جرب تدمدي كان جوجنا وقاسكي على كان ساري من إمام وقاسو صوت وو الله سار ماني رحيب وقاس غير قبول ليبان بركة أو سومالي سكين الله كاذب marka aan koroyd nin muslim ah waay oo daacad ah oo dalshay dad shayba daacadan ah marka calina maanta ma ahan nin oo had geeg ko at inaas matqaana wax xukumo cali horas waxaan soo xukumi cali horas dad aan soo hogaamiyay cali horas sharaf aan lahaay marka sharaftan kala maanta walaalintiis aan soo dareegna waxaan layaa guul caliyo waa inaad iska ilaalisaa xilka aad qaaday maanta xil yar ma ahan Soomaaliya dhan baad u qaaday meesha baahida ay ka jirto waa inaad ogaataa gabdhaha la kufsanayo walaalaheena waa inaad ogaataa dumarka waa baaba'een hooyooyinkiinni way idin dhaleen waa idin dhaxeen ma ahan in lagu dheelo waa inaad kor u soo qaadaa waa inaad ogaataa baahida meesha ay ka jirto waa inaad ogaataa taan guri haysanin waa inaad ogaataa tiibiya la'aan caawa hayso tii banaanka ku foolanayso waa inaad ogaataa raggiinana waa inaad mas'uuliyadda qaadaanoo aad garabkiisa istaagtaan waxaan leeyahay suldaanka hambaliyo aad iyo aad aan kugu hambaleynayaa arrintan culus oo yani mas'uuliyadda culus lagu dhiibay maxaa yeelay anigu naftigeyga kelimad leema siin laakiin aniga unba isiinay maadaama gabagabo ay marayso suldaani fali tafadal waxaa mudnaan iyo sharaf ah inaan idin soo hor istaago idinkoo walaalaha iyaga ah gaar ahaan
beesha aan ka dhasho i dooratay haddaan intaa ka gudbo caleemasaarkan maanta waxaan loo caleemasaaraya waxaa weeye markay beesha garre fadhiisatay ay ogaatay in ay u baahan yihiin isku xir guud yaa muddooyin 7 bilooda waxaanu ka shaqaynaynay in la isu keeno qurbo joogta dibadaha ku wada nool oo dhan maadaama aad ogtihiin Soomaaliya in dagaal ka dhacay burbur ka dhacay ee kulli qurbo joog u badan yihiin dalkii inta joogta ama Kenya ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto xaggay jiraan laakiin inteena qurbo joogta saas iga warqab lahayn horaan waxaan ahaa aniga ugaaskii UK markaan arkay oo darsi aan fiiriyay wali waxaan aragnaa in baahi kale ay jirto muddaanu ka shaqaynaynay delegation fara badan baa isugu keenay oo Europe iyo meel walba ka yimid kuwiina soo gaari waayeen waxay noo isticmaaleen electronic waxay noo soo direen baaq waa isu keenay waxaan samaysanay dastuur waa nidaaminay waxaana lagu go'aansaday in aniga aan maaragtay u noqdo hogaankooda aan noqdo insha Allah waxaan ka rajaynayaa xilkan aan qaaday inaad igu garab qabataan igu qaadaan anigana mas'uuliyadaas Ilaahay hortiisa aan ku qaaday inaan dadaal badan sameeyo dadaalkii aan waday ka weyn mid ka weyn aan sameeyo hadii Ilaahay